rabshado xoog leh ayaa habeenkii lixaad ka dhacayay magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka iyadoo ay soo xoogeysanayaan rabshadaha ay sameynayaan dadka mudaharaadada oogaya oo ka cabanaya dilkii toddobaadkii hore loo geystay nin madow oo aan hubaysnayn magaalada Minneapolis. mudaharaadadaasi ayaa imika waxay wada gaareen inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. haddaba warbixintan gaarka waxa noo soo diray wariyahayaga Deeq Darajo. waxaa sii xogeysanaya mudaharaadada ka dhacaya 40 magaalo oo ka tirsan dalka Mareykanka halkaasi oo shacabka ay ka wadaan mudaharaadyo lagu soo horjeedo dilkii toddobaadkii hore ee booliska magaalada Minneapolis ay u geysteen nin madow ah oo lagu magacaabo George Floyd. shacab cariisan ayaa gubay saldhigga booliska magaalada Minneapolis halka magaalooyinka Philadelphia, Atlanta, Denver, Los Angeles, Seattle dab la qabadsiiyay baabuurta ay leeyihiin booliska magaalooyinkaasi. warbaahinta Mareykanka ayaa tabinaysa in xaaladda ammaan ee madaxweyne Donald Trump ay qalqal gashay muddo saacad ah maalintii Jimcaha kadib markii dad cariisan oo mudaharaadaya ay soo buuxdhaafiyeen afafka hore ee dhismaha aqalka cad. madaxweyne Donald Trump ayaa ciidamada ilaalada waxa ay ula carareen qol dhufays ah oo dhulka hoose ee aqalka cad ku yaala si uu halkaasi gabaad uga dhigto. haddii aan u soo noqdo gobolka Minnesota oo ah xudunta ay mudaharaadyadani ay ka bilowdeen ayaa bandoogii la soo rogay dhaqan galay. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo jahwareer xooggan ay ka muuqato ayaa ballan qaaday in awood buuxda loo adeegsan doono soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta magaalooyinka mataanaha ah ee St. Paul iyo Minneapolis. gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in waxa haatan ka socda magaalada Minneapolis ay xasuusiyeen Muqdisho iyo Baghdad. waxaana gobolka Minnesota lagu soo rogay bandow bilaabanaya habeenkii 8 fiidnimo ilaa 6 subaxnimo. waxaana wadooyinka magaalada Minneapolis la keenay ciidamada keedka qaranka Mareykanka oo gaaraya ilaa 5,000 oo askar. maanta mar aan soo maray halkii ay ka bilaabatay mudaharaadkani ayaa waxaan arkay dadka mudaharaadaya oo nadiifinaya magaalada si ay u soo celiyaan bilicda magaalada Minneapolis oo ay ka muuqato burbur aad u xooggan. dadka magaalada nadiifinaya ayaa waxaa ka mid ah Soomaali kuwaasi oo aan kula kulmay afafka hore ee bangiga Wells Fargo oo la gubay. bangigaasi oo aan ka fogeyn suuqa weyn ee Soomaalidu ka ganacsato ee Carmel. magacayga waa Saciid Maxamuud Gure Sambulan ku magac dheerahay Deeq Darajo ku salaamay arrinkan ay u dhacday aad aan uga xunnahay haddaan reer Minneapolis Soomaalida degan Minneapolis aan nahay. waxaana ka qayb qaadanayaa dhismaha maaragtay dib u soo celinta Wells Fargo bangigan oo si xun oo fool xun loo galay oona aad iyo aad ugu xun dhaqanka maaragtay Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. aad baan uga xunnahay waana ka qayb qaadanaynaa inaan dalka dib u dhisno oo annagana magaaladana ay tahay. magacayga waa Farax Maxamed Cali. halkan waxaan u imid inaan arrintan community-ga inaan ka qayb qaato. markaan meel degantayna waa inaad sidii gurigaada oo kale ugu noolaato. hadda waxaa boostadii hadda waa la burburiyey dadka warqadaha meesha wax ugu soo dhacayaan ma jiro. Wells Fargo hadda lacagihii meelaan kala baxay ma laha. dukaamihii raashinku dhawaala wada xiray. waxaan aad u mahadnaqaa dadka reer Minnesota ee Soomaalida community-ga degan oo wiilasha u jeedin waa wiilasheena Soomaalida ee ma arkano dhibka gaaray Minneapolis oo ka hortagayo dadka caawinayo. waxaa u soo baxnay kaliya inaan dadweynaha caawino. cabdirashiid jibriil waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool Minneapolis waxa uu si iska wax u qabso u kala hagaya gawaarida maraysa wadada Lake Street ee Minneapolis. waan ka qaaday bal ka war shaqada maanta hayso isxilqaan ma sha Allah fursad shaqa ayuu ku jiraa fursad ayaan siinayaa aad buu u mahadsan yahay sakanadaas uu nala hadlana uu ku mahadsan yahay sababtoo ah shaqa adag ayuu hayaa. sidoo kale banaanbaxyadani ayaa waxa ay saameeyeen ganacsiyada iyo isu socodka magaalada Minneapolis mana muuqato in uu joogsanayo banaanbaxyadani. dadka waxay dalbanayaan in la soo xiro 4 askari ee ka qayb qaadatay dilka loo geystay George Floyd waxaana xusid mudan in askartaasi mid ka mid ah horey loo soo xiray. Deeq Darajo Universal TV Minnesota.